halkan waxaan rabaa inaan tacsi u diro dadkii lagu laayay dalka New Zealand oo kooxda argagixisada cadaanka ay ku laayeen. Allah u naxariistaan leenahay dadkii dhintay, kuwa dhaawacana Allah caafimaad degdeg siiyo. dadkaas halka ku dhintay waxa kamid ahaa dad Soomaaliya ayakana sidoo kale aan gaar ahaan ugu tacsiyeynaa qoysaskii iyo familigoodiba. halka waxaan rabaa inaan baaq u diro dowladda federaalka Soomaaliyeed gaar ahaan madaxda ugu sareysa dowladda, madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ugu horeeya. madaxda adduunku way soo tacsiyeeyaan, tacsiye isu diraan, horena waa u sameeyeen. laakiin halkan dad muslimiin ayaa lagu laayay, masaajid baan lagu laayay. inaad ka mid noqotaan waa muhiim. madaxda halkaas u diraysa ra'iisul wasaaraha New Zealand iyo shacabkiisaba iyo gaar ahaan shacabka muslimiinta ku nool wadankaas. dhan kale mas'uuliyad kale ka saarano dadka qasaaruhu iyo dhibku soo gaaray Soomaali way baa kamid ah. marka inaad la xiriirtaan oo si shakhsiyan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu direct ula xiriiraan ra'iisul wasaaraha dalka New Zealand uguna tacsiideen dhibaatada ku dhacday waa wax muhiim ah. hadday ku sii dari karaan qoysaskii muslimiinta ahaa ama Soomaalida ahaa dhibaatadu gaartayna la xiriiri karaan waa iyadana waa wax ka sii fiican oo hadii lagu dari karo. laakiin waxa ka xun inaan dowladda federaalku arrintaas ka tacsiideen madaxdeedu, wasaaradda arrimaha dibadduna ka tacsiideen. inta badan way dhici jirtay inaan markii arrimaha Sacuudiga iyo Turkiga iyo aan ka in aad wasaaraddu ay u dheereen jirtay arrimaha dibaddu ay arrimaha Sacuudiga iyo ka hadli jirtay. laakiin halkan ummad muslimiin lagu laayay Soomaali ka mid tahay inaan laga hadlin taas waa wax aan la aqbali karin weeye. hadda tii u dambeysay safaaradda Ethiopia ku leedahay Muqdisho watii madaxdu ay tacsiidii ka dhigayeen. marka yaa la daahin hadda chance baa jira, dadku ay wali dhibkii waa dhow yahay. marka dowladda federaalka Soomaaliyeed ama haday tahay madaxda ugu sareysa hadii la heli karo ka hadleen ama wasaaradda arrimaha dibadda ha la xiriirto wasaaradda arrimaha dibadda dalka New Zealand ayadoo behalf of dowladda Soomaaliya oo hadlaysa in ay ka tacsiyeensa dhibaatada soo gaartay shacabka New Zealand iyo ummadda muslimiinta halka ku nool oo ka mid yihiin Soomaalida. marka arintaanu yaa waxaan codsanayaa dowladda mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo fududaysan fadlan arrin muhiim weeye. mas'uuliyad baan ka saaran inaad ka tacsiideysaan oo ummaddaas tacsiida ka mid noqotaan. su-aasha hadda wasaaraha New Zealand oo la weydiiyay madaxda adduunku mid la soo xiriireen oo tacsiida mid la qaybsadeen haaba tiro marka waxa nala soo xiriiray warkii hore ay bixisay ahayd saaka hore xalay in hayd ba malaynaa ama saaka hore ahayd inay sheegtay wasaaraha dalka Australia baa nala soo xiriiray tiri. marka madax kale in wasaaradda arrimaha dibadda la soo xiriireen baa laga yaabaa tiri. marka fadlan arrin muhiim weeye. dad Soomaaliya ku dhibaataysan meesha ku lagu dhibaateeyay dad Islaam muslimiin lagu dhibaateeyay ka hadla. marka waa u tacsiideenayaa dadkii halka dhibaatada ku soo gaartay. marka waxa kale oo tacsiideenayaa qoysaskii Soomaalida ay kuna dhibka ku soo gaareen ay kana u tacsiideenayaa intii dhimatay Allah u naxariisto, inta dhaawacana Allah caafimaad degdeg siiyo. waan cambaaraynaynaa dhibaatadaas iyo kooxda argagixisada ay soo qaadeen. aad bay u mahadsantihiin.